waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa matasharafta ka soo qayb gashay xafladda saddexda gudoomiye degmo iyo gobolka Jarar iyo dhammaan cid kasta oo ka soo qayb gashay degmadii inoo samaysay Suuriyada ee inagu soo dhaweysay meesha ayadana waan u mahadnaqayaa ilaahay baa mahad leh waxaynu isugu nimi maanta oo madasha aynu isugu nimi ma ismaqlana oo aynu isugu nimi madashan maanta waxa weeyaan waa guul waa horumar weeye waxaynu isugu nimi dadka bini'aadamkiina markay isugu yimaadaan wax wada qabsi iyo horumar waxa weeyaan wuu ka qiimo badan yahay hadal laqwi oo meel laga yiraahdo waxaan marka hore u mahadnaqayaa gobolka Jarar aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa degmada Daroor baan u mahadnaqayaa waxaan u mahadnaqayaa kale gudoomiyaha degmada Salaxley iyo dhammaan khiyaarta kale waxaan u mahadnaqayaa kale gudida wadada cad ee soo waday ilaa inta ayagana waan u mahadnaqayaa cid kastoo gacan ka geysatana waan u mahadnaqayaa waxa weeyaan waxaan idin leeyahay aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin gudoomiyeyaasha ka soo qayb galay ee degmooyinkana mahad gaar ah baan u celinayaa inta markaan ka gudbo waxa weeye waxaanu nimi maanta ina guuxa waxa weeye waa magaalooyinkii u horeeyay ee berigii dawladii Soomaaliya jirtay ee wadada isku furnayd koonfur iyo Soomaaliland isku furnaayeen waa dhulkii noolaa weeye intii dhulkaasi burburku ku dhacay waxay ka mid tahay degmooyinka burburay ayay ka mid tahay waxaanu rajaynaynaa inay ku soo noqoto sideedii hore oo aanu ku soo dhaweynano cid kasta oo ka qayb qaadanaysa magaaleynta la magaaleynayo ina guuxa oo aanu ku soo dhaweynano oo waliba gaar ahaan absame ugu horeysiinano markaan intaa ka gudbay aan beesha absame oo sababta aan ugu horeysiinaya ay tahay dhuunta kaliya ee waraabisa wadada caddi waxa kala soo raaca beesha harti ayaa iyaduna soo raacda oo ku xigsiinano deegaameynta ka qayb gelinana waxa kale oo ku ballan qaadaya oo aan wadna oo aanu imaka ka shaqeynana aanu gacanta ku haynaa solarkii magaalada shidayay iyo dhirayntii magaalada intaaba gacantaan ku haynaa waan idin bushaareynaya taana waxa kale oo idin sheegaya qurba joogtii hartiga gaar ahaan iyo beesha ogaadeen ee qurbaha joogtay inay ballan qaadeen nin kasta in la siiyo booska uu ku shaqaysanayo oo isagana aanu u diyaarinayno ka wada hadli doono deegaanka oo aan imaka lacagtoodii hayo 500,000 aan gacanta ku hayaano waan idin ballan qaadaya taasina waa waxaanu gacanta ku hayno laakiin waxa weeye deegaankaanu ka wada hadlanaa dadka deegaanka ee meesha degan baanu ka wada hadlanaa sida loo deegaameeyo dadka iyo sida dadku u degayaan dadkaanu ka wada hadlanaa iyo sida loo kala hormarinayo aniguna waxaan ballan qaaday inaan kaalintii ka sameeyo anna number 1 bakhaarkiina raaciyo waxa kale oo idin sheegaya qof kasta oo dhul la siiyo oo aanu ku soo dhaweynana magaalada ma doonana magaalada in saas laga dhigo qof kasta oo dhulka la isku taaga marka la isku taago waa inuu alaabtiisana wataa guryaha aanu dhisano waxa weeyaan ninkii aan guri haysan ee ku baac mushtareynaya annaga siinana inta hore ee waliba dadku baranayaan kare ka qaadi mayno taana waan idin sheegaya
marka waxaan leeyahay soo dhawaada waanu soo dhaweynaynaa dadweynaha ganacsatada deegaamada weliba gaar ahaan waxaanu soo dhaweynaynaa beesha absame ayaanu leenahay soo dhawaada soo dhawaada soo dhawaada waa ciidiinniye waxa kaloon idiin sheegayaa waddadan markaanu soo gaadhsiinayna guuxaa xilku wuxuu ka saarayey dowlad deegaan Soomaaliga maxaa la yiraahdaa magaceeda ayaa la yiraahdaa Mustafa Cagjar buu xil ka saaran yahay annaguna waxaanu rabnaa inaanu ka qayb qaadano insha Allah taala oona cidi inoo dhaxayn inaga iyo isaga waxa kale oo aan idin sheegaya wadada inaanu imaka jecel lahay sida ay gudoomiyaashu sheegeen in gacan laga siiyo oo wax lala qabto oo waxay u baahan yihiin bal laga taageero haday tahay xoolo haday tahay maskax haday tahay qalab haday tahay wax kasta oo deegaanka lagaga caawinayo shaqada ay qabanayaan in lala garab galo oo la caawiyo oo lala qabto ayaanu iyadana u soo jeedinaya deegaanka waxa kale oo idin soo jeedinaya oo dadweynahana ku baraarujinaya deegaanka inay soo dhaweeyaan dadka in aad loo soo dhaweeyo in riix la iska ilaaliyo in afxumada la iska ilaaliyo in wixii allaala wixii culays ku yimaada culays baa ku iman doona waa run si fiican i dhageysta culays baa ku iman doona lama doonayo inay magaalowdo meeshuna way magaaloobaysaa wax nafsi wax la yiraahdo baa jira waxaan kaloon ku soo dhaweynaya oo aan leeyahay wixii baacmisharaya imanaya ha ka qayb qaataan wadada ay makala qaadayo sarbaygeeda ee la samaynayo ha ka qayb qaataan baacmisharga doonaya inay degaan magaalada nin kasta oo dhul la siiyo oo magaalada dhul doonaya annaga isku noqonana dhulka qaabka loo bixinayo annaga ka wada hadlana markaan ka wada hadalana annaga bixinana waqtiga sheegana cid la siinayo sheegana sida loo qaybinayo sheegana